بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والسلام يا أمد الإسلام كي داونيسا أمد الإسلام كي داون دونتا waxaan jeclahay maanta inaan ka hadlo horumarka la taaban karay ee Soomaaliland ku talaabsatay muddooyinkii la soo dhaafay gaar ahaan dhinaca arrimaha dibadda. runtii sanadihii u dambeeyay Soomaaliland waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo ay ku iibgeynayso qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxa la gaarsiiyay oo la qaraacay albaab kasta oo ka mid ah albaabada wadamada Afrika iyo caalamka intiisa kale. haba ugu badnaato wadamada Afrika runtii ee Soomaaliland jaarka la ah geeska Afrika ama Afrikada inteeda kale. waad ogeydeen waxay Soomaaliland sanad ka hor ay tagtay wadanka Guinea kara kaasi oo heshiis wanaagsan oo cilaaqaad wanaagsan oo Soomaaliland guud laga soo hooyay. waxa kale oo ka mid ahaa Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland ay hore heshiis ula saxiixdeen maalgelinta ka Berbera iyo saldhig military oo ay ka sameystaan magaalada Berbera, taasi oo natiijo wanaagsan keentay. runtii keentayna in Soomaaliland Imaaraadku aqoonsado oo baasaboorka Soomaaliland lagu tago wadamada Imaaraadka. taasina guul weyn bay ahayd. intaaba Soomaaliya xagaxagasho iyo eedeyn iyo cabasho ay daboodi, laakiin mar walba qaranka Soomaaliland ayaa guushaystay sababtoo ah qaranka Soomaaliland waa qaran daacad ah, waa qaran aan cufti iyo nacayb iyo waxa toonaan ku jirin oo dad wanaagsana. taas oo samaxday in waxba laga qaadi karo waayo Soomaaliland si kasta oo loo soo weeraro xagga siyaasad iyo xagga kalaba. heshiisyada kale ee la gaaray waxa kamid ah heshiiskii Taiwan ay Soomaaliland iyo Taiwan ay wada galeen wadanka Taiwan la yiraahdo runtii oo wadan weyn oo wadamada adduunka ugu dhaqaalaha roon kamid ah kana dhaqaala badan wadamo badan oo adduunka ah. runtii leh warshado wax soo saar waxna dhoofiya adduunka oo dhan wuxuu dhoofiya xagga difaaca isku filan, xagga dhaqaalaha, siyaasadda, laakiin wadan aan la aqoonsanayn runtii. Soomaaliland u noqon kara hiigsi dheer u noqon kara oo ay hiigsato maadaama Soomaaliland aanay horumar iyo dhaqaale iyo aanay lahayn. runtii ana ku dayan karto in Taiwan oo aan la aqoonsanin maanta ay ka horumarsan tahay oo ay ka dhaqaale badan tahay wadamo badan oo adduunka kamid ah. runtii taasina waa wax laga dayan karo. waana soo dhaweynaa heshiiska wanaagsan ee Taiwan iyo Soomaaliland wada gaareen runtii oo dad wanaagsan runtii oo qalbi furan oo walaaltinimada jecel oo walaaliheen aadna inoo soo dhaweeyay runtii dadka reer Taiwan. safaaradana ayna kala dhiganay labada dhinac iyagoo oo naga fog oo in badan naga fog haddana fahmay dareenkeena iyo waxaan u baahanahay iyo waxaan dhibaatooyinkan haystay waxyaabahan u baahanahay inaga caawiyay. waxyaabahan ka faa'iidna Taiwan waxa kamid ah in Taiwan ay naga caawiso dhinaca waxbarashada oo runtii aynaan haysan waxbarasho heer sare oo dadkeenu scholarship ku soo qaadan karaan. dhinaca caafimaadka oo runtii dalkeenu aan caafimaadka aad ugu wanaagsanayn, taa beddelkeena ay tegi jireen wadamo badan oo fogfog sida Hindiya oo kale, qaar Hindiya taga, qaar China taga, qaar taga Ethiopia. runtii naga caawinaya inay si xushmad leh inoo soo dhaweeyaan oo dadkeenu ay caafimaad ahaan u tagaan Taiwan oo runtii caafimaadka ku horumartay. alxamdulillaah rabbil caalamiin waa tallaabo wanaagsan oo inoo soo kordhay waan soo dhaweynayaa. waxa kale oo ogeyn in Soomaaliland ay xiriir la sameysatay wadanka la yiraahdo Gambia oo runtii baarlamaanka Gambia ay ka doodeen jiritaanka Soomaaliland iyo qarannimadeeda iyo dimuqraadiyadeeda iyo waxay qabsatayba. runtii ayna garowsadeen inay tahay Soomaaliland meel nabdoon oo dimuqraadiya dal wax qabsaday. runtii aanay aqoonsadeen Soomaaliland baasaboorka Soomaaliland maanta lagu tagi karo wadanka Gambia. waan soo dhaweynayaa. xiriirada isdaba jooga oo dhan waxay kamid yihiin guulaha qaranka Soomaaliland uu ku talaabsaday sanadihii u dambeeyay. waana wax loo baahan yahay in la dhiirigeliyo, la dardargeliyo, lagu garab istaago madaxweynaha iyo wasiiradiisa guusha ay keeneen.
ka Somaliland ahaana waxaan shacabka reer Somaliland soo jeedin lahaa maanta maaha maalintii aynu xisbiya kala noqon lahayn iyo siyaasadda ku kala duwanaan lahayn maaha maanta waa maalintan israaci lahayn cadow badan baynu leenahay tallaabadaynu qaadnaba cadowga ku naban oo inagu dhajisan waxaan doonayaa inaynu iska celino cadowgeena oo dowladdeena garab istaagno wixii ka xunna aan hoos ugu sheegno wixii kalena aynu u muujino oo aan ku garab istaagno Somaliland waa qaran madax bannaan waxaan leeyahay Somaliland ha jirto Somaliland ha waarto cadowgeegu ha jabo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.